waa la og yahay maanta dhalinyarada saxaafaddu afkii halkay marinayso waxaan maqlaa iminka halkana waa laga lahaaye dadka afka Soomaaliga ku hadla sax maaha Soomaaliga dadka ku hadla sax maaha waxa saxa dadka af Soomaaliga leh ku hadla waa amaano malihida wad ku hadashaa dhulka Soomaalidu degto balka war dhulkiiba waa amaano inuu yahay cid kala leh muddo yara deganaayna ka tagayna waa erayada khaladka madaxweynuhu soo guriya noqday waa khalad xoolaha luma la oran jiray guriga bay dib ugu guriya noqday erayadaas oo laakiin madaxweynuhu hebelo ka dhawaajiyay waxa loo oran jiray ilma yar ka dhawaajiyay baa la oran jiray madaxweynuhu ay ka soo yeedhay balka waran cayda inta le waxa loo oran jiray qofku maxay naga soo yeedhay baa la oran jiray laakiin dhalinyaradina iyana waxay gar ku leeyihiin de meel ay u noqdaan oo afkii ka qaataan ayaan jirin marka waxaan isku yardeeyaa in yar oo aan qoraal aan bari sameeyay erayada waxaan u bixiyay barakicinta ay erayada qalaad ku hayaan af Soomaaliga marka badin maayo dhowr eray baan ka soo qaadaya su'aal iyo jawaab baan ka bilaabo su'aal iyo jawaab labadaba waa Carabi waxay meesha ka saareen weydiin iyo warcelin waxaan ku xijiyay erayada xagga inaga yimi caafimaadka inaga imanaya ee affection iyo koomo inagu waxaan oran jiray caabuq bal ka waran koomo waxaan oran jiray hebel waa miyir la'yahay waa isla maqan yahay waa baraad la'yahay waxba kala garan maayo intaas soo eray meeshii maxaa ka saaray koomo ku jira baa lagu marka bas intii looma baahna waxaanu lahayn xilli iyo milay iyo amin inta maxaa meeshii ka saaray waqti erga waqti baa la adeegsanaya maxaanu leenahay deris iyo olog iyo ood wadaag maxaa meeshii ka saaray jaar erga qura ka saaray meeshii qabay iyo curaad maxaa meeshii ka saaray rahmaad erayo badan oo sidaas ah ayaan toddobaad waxa meeshii ka saaray week buuni waxa meeshii ka saaray caalin ilaaliye waxa ka saaray waashmaan googo maxaa meeshii ka saaray sarif markaas waliba cajiib waxa ah anigu hargeysaan ka imo waxaaba imika isna ka sii saaray sarifkiina sirsir oo Etoobiyaan yaa isna sii riixayaba islaan maalinta habshir wax ka sarifana saan ku yiri eeda ii sirsir bay tiri markaas aan ku yiri eeda madaf Soomaali ku hadashid ma saytii oomiyaan Soomaali ahayn markaas ay may way Etoobiyaan يعني أفكي بالله سكود القبصة يدو مركو هره صرفوا عربي كساري ماشى جوجو أيها كي عربي هنا وحكسي ساري إثيوبيان لبا أفبا سكود سيدول هيستا أف سوماليجي مركو هذا إرجع جوجو يسوق مره رودين تاي كوي كلا لولا مية إن بالكورن شانس أما فرصة هذه قف كمان الصومالي قال لي رد عليه هذا محاسب ما اللي بيقول هذا حاليا أنا قراني كان شال أورنشري قرمود أنت كان شو وحكوني يا شانس وما هي وحها هذا تا ونيو تشارلز وإنجليزي نحن قلنا ها ورنتا فرصة ما هي ده ينوع عربي مركز قلنا الصومالي أول ميول ها إيرانو عاصم إن شيء ما ماشي كسري أجانب أبحد وحلورن شري وينو هرجة هو لو قرن شري مريا ده صندوق ويا ماشي كساري إن حردي وحكساري صحن ودرس وحنو أديك سناي مك قياس erayga oo doros qoliya miisaaniyadeed dawladaha yaa ugu sii dambeeyo adeegsada oo doros miisaaniyadeedka laakiin dadkii kale waa ka tagay qiyaas baynu qaadanaa oo yana carabi ah harimo yana bari hore dhimatay waxaanu qaadanay qado dadkii hore maba qadayn jirin hoobal ninkii cayaarta ku fiicnaa fanaan baa ka saaray meesha oo qaatay chat waxa ka saaray nooc intaas soo nooc buu ku oranaya intaas soo chat baa la oran jiray af Soomaaliga dhabcaal bal ninkaana wax loo sheegtay mooyaane awalba kaasi khayr badan ma lahayn bakhayl baa ka saaray isna meesha dhabcaal garasho iyo kasmo labadaba fahmaa dilay oo meesha ka saaray erayadaasi way badan yihiin runtii in cusbo milix baa meesha ka saaray rabrabna sariir baa ka saartay food maraq baa dilay oo isna ka saaray meesha oo halkiisii ugu yimi bal food iyo maraq maxaad ku kala dooran kaagaaba qurux badan baroor diiq tacsi baa dishay hodanna taajir baa dilay garaad caqli baa ka saaray bariido salaam baa iyana meesha ka saartay guh demiigi baa laga yimo sanad baynu qaadan oo carabi ah suudal iyo dhuyaal iyo kudaal intaaba waxa dilay imika tahriib
وعربية أروريو واحد دلي الصباح فول وجهي بعد دلي جديد ظهر بقى كساري أف كائم كاينو شغلنا لغات بعد ده كسي وضع كائم كاينو شغله لغات بسير ريح حسة بري معلم بقى كساري أديكس استعمال بقى كساري erayga ugu geerida xun ee ugu naxdinta xun waxaan oo dhanba ma aan ka sheekaynayo erayga halista ah ee meesha ka baxay waa erayga la oran jiray hooyo maama dabada ka wada imika mala facebookada waa ku aragteen hal maama la yiraahdo maama loo soo diray marka saa weeyga baa ka naxa intaas waa in yaro kooban oo aan ka qoray raaliga ahaw aan tix yaro kooban raaciyo tixda kooban markaan arkay afka sida loo quursanayo ayaa oo qofka la hadashay af Soomaaliga u yaqaano afartan eray suuqdiga ah inuu af Soomaaligu yahay ayaa waxaan isku dayay bal hadaba afaan suuqdigan ahayn gabyaguna markuu gabyayo kuma gabyo afka suuqa waxa la yiraahdaa waa ka wax lagu kala iibsado waa suuqdi waxa gabyagu afka miyigu ku gabya marka waxaan si bal afaan la garanay oo xeel dheerayaasha mooyaane nin miyi ku barbaaray oo ku weynaaday mooyaane dhalinyaradu aanay garanay xagga dambe aan ka sheegi doono afka iyo muhiimadiisa ayaan isku day waxaan yiri awin iyo aswaan iyo arah iyo argeegiyo agadkiya adeentida orobkiya arbeebiga abaajiga asool kale awsaaxa jiifiya ilmadhu kolay tahay ardalkiya amuumkiya adami tilmaana usmiirka liitee nafta lagula eertiyo abqadiya adaahida abxadiya adarigi iyo aabigeedii alamaanku saaraa agabaraha geedkiya igmashada fartaaga leh ologiya ardaayada axdartiya asaayaha awgiya ijaabada adurtii la oran jiray agloolkiya anfaaciga arooskiya agliilkii ajuurada wadaadkii eeraanka dheeraa agtilaalkii soocnaa amihiya aboodiga axadhiya akeekiga anfariirka jaantiya aynfaadka yaab kale arartiya halhayskiya ilma rogashadeedii erayada tasoobiyo afku inuu agoon yahay aqoonyahan tilmaamiya abwaan kuma qarinine kuma adeersanaysa ayax guuray eel reeb aragtida xidaarkiyo wax la yiri aftahankii aamus buu ku dhow yahay bayaxow odoroskii naaf dhaladka eedee amin iyo godlayswaa asal oodan baan jirin runta aba saxeed iyo abaraaqa waayaha ab ogaa warkiisiya arnaa'uudka weydii ay garadka sii raac eela weynta naaxdiyo baydari ugaarsiga ishinkeeda raacdee ohligaad jeclaydiyo okholaha halkiisii umal baa ka sara kacay aroortiya aroorida ashkir inuu bariistiyo wax la yidhi adeeridu dhulka meel aftoolina kuma uunsi shidato aarmigu ma saacido waa agaali waranley iyo nugul abaareed carshintii aloog iyo calow darantii eexood alla waxay ka sugayaan cirku inuu mar ooftiyo arligo ku doogsada ukulidii dareenkii iyo uubataysa joogee yaa irdheeyey waayaha yaa agoolka saanyaday agool eraygaasoo qura haddaan macnayo uskaga qofka galaa laba meelood buu galaa mid jidhkuu galaa midna madaxuu galaa labadaba imika waxa la yiraahdaa toxob laakiin sax maaha toxobta waxa la yiraahdaa inta jidhka gasha madaxa uskaga gala agool baa la yiraahdaa Soomaaliga agool baa la yiraahdaa laakiin de agoolku waa dhinto labadaba waxa la yiraahdaa uun loo isticmaalo arba waa yaqaana halku oosha mariyo oo limaa diraaceed uda weyna kuma furo udu waxay ahayd dayma saxara la yiraahdaa way ka sii horeysay waa deeriyada waqti hore dhintay garashada abguurtiya aradkana hanka u daran indhaa aragtidooday ilkuhuna wax gooya adduunyada afbaa fura aqoontana afbaa qora dhaqankana afbaa sida dhaxalkii awow iyo isirkana afka u mudan aatharta duug iyo taariikhda aadmiga afku udub dhaxaad iyo aqalkooda weeyaan ummadana hankeediyo ilbaxeeda weeyaan ubadkana asluubtiya aayahooda weeyaan alif macallin baa dhigay iyo awgii weynaa waa sheekh yuusuf kaynuuno isaga loo riixay alifka waxa la oramadu soo maro wuxuu ku yiri alif wax male dabeetana inagu inoo yimo wuxuu yiri alif la kardhibay dabeetana mala labadii qolay sugaad waxaan de sheekh xaqana waxaan nagu tiri alif wax male xaqana waxa tii alif la kordhibay bal labada iswaafaji waa ta lagu maamaa sheekhow labadaba aadaan yiri alif wax male iyo wax buu leeyahayba
marka waxaan alif macallin baa dhigay iyo awgii weynaa keena diidna aashi aragtiya far buu qoray galaal aynigiisii ummaddu wax uga tegey kadaraa ogaalkay qoraal loogu iman jiray aqoontana shiraa yidhi maaniftiin ku saanyadu afrax inuu dadaaliyo weli orodkii muudayn gaariyana astaamaha afka waa macnayn jiray intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu